magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool waxa sanadadii u dambeeyay ay tallaabsatay horumar ballaaran iyadoo daboolmeen baahiyo badan ay u baahnay degmadu. Laascaanood waxay ka mid ahay deegaamada Soomaalida kuwa ugu wanaagsan uguna taariikhdii iyo sooyaalka wacan inta loo yahay deegaamada Soomaalida. Haatan Laascaanood waxay ka soo kabatay qabyaalada wadala'aan biyo la'aan waxbarasho la'aan ay ku yarayd goobaha waxbarashada taariib dhalinyaro xarumaha caafimaadka oo yaraa si kastaba ha noqotee Laascaanood waxay tartan iyo hirdan kula jirtay gobolada deriskeeda iyo deegaamadeeda. Laascaanood xarunta gobolka Sool waxa ka dhacay dagaal la sokeeyo iyadoo dejinta colaadaha iyo heshiiska sida xal waara looga gaari lahaa deegaanka iyo gobolkaba ay qayb weyn ka qaateen odayaasha waxgaradka maamulka haatan ka arrimiyo gobolka Sool. deegaanka imika Laascaanood waxay noqotay deegaan ay bulshadu ku wada damaashaadayaan iyo sidii nabad u noqon lahayd mid lagu seexdo laguna wada joogo. magaalada Laascaanood ma laha biyo gelin rasmi ah waxayna biyaha ka heshaa ceelasho ay kamid yihiin durdurka iyo baraagaha hawdka oo laga keeno biyaha macaan. haatan Laascaanood waxay yeelatay shirkado gaar ah oo soo saara biyaha macaan kuwaas oo shirkadu iyagu markaasi qayb weyn ka qaatay biyo la'aantii ka jirtay iyo abaartii soo martay gobolka Sool. Laascaanood waxay kamid ahay deegaamada Soomaalida kuwa ugu waxbarashada iyo diiniga maadigaba ugu aqoonta tayada wanaagsanaa kadib intaan burburku dhicin. haatan Laascaanood waxay yeelatay tiro 4 jaamacadood iyo goobo waxbarasho oo diini ah halka Laascaanood ay haatan leedahay maxadka diiniga ee Furqaan oo ugu weynaa maxadda diiniga iyo geyga Soomaalida lagu kala yiman jiray sidii loo helo arday iyo culimo si wanaagsan u baratay diinta Islaamka. magaalada Laascaanood ayaa kamid ahay deegaamada sida weyn looga taariibay sanadii 2013 ilaa 15 Laascaanood ayaa haatan noqotay mid dhalinyaradu ay heleen shaqooyin iyagoo ay soo noqonayaan qayb ka mid ah dhalinyarada tahriibtay iyagoo helay goobo madadaalo ay kamid yihiin rooga cagaaran kaasoo noqday mid ay kaga baaqdaan tahriibka iyo sidoo kale qabyaalada. waxa marba markaasi dambaysa la helaya goobo caafimaad oo iyagu badan kuwa bulshadu gaar u leedahay halka bukaanka loo qaadi jiray gobolada deriska una bukaanku dhiigbax iyo oxygen la'aan ay wuxuu noqon jiray. Caaqil Axmed Sanyar oo kamid ahaa odayaasha ugu daada weyn gobolka Sool ayaa ka warbixinaya marxaladii kala duwan ay soo martay degmadu. xaaladda isbedelka degmada Laascaanood ama gobolka Soolba marka ugu horeysa xaaladda gobolka guud ahaan nabadgelyadeedu waxay maraysaa meel wacan colaadihii beelaha muddada dheer ka socday haday dhinaca Taleex tahay iyo haday dhinaca koonfurta Laascaanood tahayba waxa weeye waa lagu guuleystay Ilaahay mahadii damintoodii xagga horumarka magaalada madaxda gobolka Sool degmada Laascaanood muddooyinkii sanadahan dambe waxa ku soo kordhay isbedel wacan oo xagga horumarka haday laamiyada tahay iyo haday tahay mid qaybaha kala duwan ee bulshada u dhalatay gobolkan jaaliyada dibadda iyo ganacsatada guduhu ay hirgeliyeen oo faa'iido badan oo horumar keentay. waxa kamid ah xagga caafimaadka oo cusbitaalo badan oo barayfada oo dhaqaatiirtii aqoontii loo baahnayd lahayd ay mid walba ka hawlgelayaan oo qayb weyn ka qaatay daboolista baahida caafimaadka. xagga waxbarashada dugsiyada maxadada barayfadka waxa weeye boqolkiiba 85 horumar bay xagga waxbarashada diini iyo maadiba ay ka sameeyeen. Cabdiraxmaan Axmed Roon Cable TV Laascaanood. adeega cusub ee shirkadda Dahabshiil iyo Dahab haddaba macmiil adeegan cusub ee casriga ah waxa uu ku sahlayaa in adigoo jooga gurigaaga hoose goobtaada shaqo aad lacag ugu xawshid asxaabtaada iyo ehelkaaga jooga daafaha dunida.